السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal kale muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan JavaScript sida waa maxay JavaScript sababta aad u baranayso JavaScript applicationada aad ku dhisi karto sida machine learning web applications mobile applications iyo desktop applications iyo ugu dambeyn sida aad ku baran karto JavaScript isla markaana aad u noqon karto qof ku fiican oo waxyaabo badan ku dhisi kara balse intaan muuqaalka sii guda galin waxaan ka codsanayaa in aad channelka subscribe dhahdo muuqaalka like aad saarto sii share gareyso fikirkaadana commentigaada igula wadaagto okay ugu horreyn waa maxay JavaScript waa high level dynamic interpreted programming language high level interpreted iyo dynamic waxa loola jeedo iyo waxyaabo kale programming ku saabsan muuqaal aan ku sharaxay baa jira linkigiisana description-ka idin soo dhigay sidoo kale JavaScript waa luqadda kaliya ee browserka uu fahmi karo ama haddaan si kale u dhigo code-ka JavaScript aad qorto waxaad ku rangareyn kartaa browserka okay waa maxay sababta aad u baranayso JavaScript waa programming language-ka kaliya ee ka maarmeynin markaad rabto inaad develop gareyso website haddii aan lahayd front-end-ga ama qaybta hore website-ka iyo qaybta dambe website-ka 1.2 bilyan oo website ayaa isticmaala JavaScript ama ku rangareysan tiradaasi oo website-yada guud ee caalamka ka noqonaysa 95%. sidoo kale shirkadaha waayahan dambe waxay aad u doorbidaan JavaScript developer gaar ahaan shirkadaha geyigeena Soomaaliyeed waxay moodaa sanadahan dambe in aad u raadiyaan JavaScript developer dabcan waayadii hore waxa aad loo isticmaali jiray programming language kala C# iyo PHP iyo kuwa la midka ah balse waayahan dambe JavaScript developers ay shirkaduhu aad u raadiyaan okay application noocyada aad ku dhisi kartaa JavaScript waxa aad ku dhisi kartaa machine learning inkastoo machine learning ka saan wada ognahay Python ay ugu khatarsan tahay haddana JavaScript waxaad ku dhisi kartaa machine learning barnaamijyo machine learning ah oo ku shaqeynayo website-yada framework-yada loo adeegsado machine learning ama library-yada loo adeegsado waxa kamid ah Brain.js TensorFlow iyo qaar kale oo badan sidoo kale JavaScript waxaad ku dhisi kartaa full stack web applications waxa la yiraahdo full stack oo macnaheedu ay tahay application dhameystiran oo front-end iyo back-end ba guud ahaan aad u wada isticmaalayso JavaScript waxa ugu caansan saddex stack oo la kala yiraahdo Maven, Main iyo Mean saddexdan stack waxa ay wadaagaan saddex teknoolojiyadood oo kala ah Emta oo u taagan MongoDB oo ah database structure ahaan ama qaabka u qorantana koodkeeda u qormana uu yara dhow yahay ama la oran karo wayba tahay JavaScript ida oo u taagan Express oo ah framework ku dulisan runtime-ka loo yaqaano runtime engine-ka loo yaqaano Node.js iyo Enta oo u taagan Node.js waxayna ku kala duwan yihiin saddexda teknoolojiyadood ee front-end-ga ah ee kala ah labada framework ee kala ah ee Vue iyo Angular iyo library-ga kale ee React.js sidoo kale JavaScript waxaad ku dhisi kartaa mobile applicationska badanaa waxaa loo adeegsadaa React Native oo ah React.js qaybteeda mobilada ama qaybteeda native-ka mobile applicationska lagu dhiso sidoo kale JavaScript waxaa lagu dhisi karaa desktop applications iyadoo la adeegsanayo Electron.js okay sidoo ku baran kartaa JavaScript waxaad u baahan tahay ugu horreyn inaad iska dhisto basicska oo aad waqti geliso haddii aan lahayd variableska data typeska haddii aan lahayd primitive data type iyo non primitive data type-ka higher order array methodska wax loo yaqaano DOM-ka ama document object model eventska async await callback functions promises iyo classeska waxyaabahaas oo dhan iyo structure-ka JavaScript marka aad soo barato dabcan waqti baad gelinaysaa ugu yaraan waxa laga yaabaa maalintii oo kale 3 saacadood haddii aad isticmaasho muddo kooban ayaad ku baran kartaa ama haddii aad 3 saacadood maalin kasta aad awoodo intaasi markaad soo barato structure-keeda iyo basicska aad iska soo dhisto weli farqi kama qodna oo sababtoo ah waxyaabaha marka aad baratay kaliya waa toolskii laakiin weli maad fahmin qaabka la isugu xirayo marka si aad u fahanto qaabka aad isugu xirleed ama la isugu xirayo waxa laga maarmaan ah in aad application-no ku dhisto badanaa markaad Google-ka haddii aad tusaalaad ku baadho aad tiraahdo applicationska JavaScript lagu dhiso iyo waxyaabo noocaas oo kale aad ku qorto waxa laga yaabaa inuu ku siiyo application-no aad u badan oo laga yaabo 5 application imkaan kugu soo dhigay shaashada oo inuu badanaa kugu soo celceliyo application-nadan haddii aad dhisto tusaalahan calculator oo kale digital clock oo kale to-do list form validation iyo waxyaabo kale badan haddii aad ku dhisto oo aad application-no real aad ku dhisto waxa kor u kacaysa khibradaada JavaScript iyo structure-kii waxyaabaha aad soo baratay variableski iyo functionski waxyaabaha aad soo baratay ayaad baranaysaa qaabka la isugu xiro application dhameystiran oo real ahna loogu dhiso
applicationada hadduu alla yaraa muuqaalada ka dambeeya ayaan idinla wadaagi doonaa sida loo dhiso ilaa iyo 5 kolba intaan ka gaarno waqtigaan u helno ayaan idinla wadaagi doonaa. muuqaalkan maanta taas ayaan kusoo koobayaa. haddii aad daawashada muuqaalkan halkan aad kusoo gaadhay waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto oo channelka subscribe aad dhahdo, muuqaalka like aad saato, aad sii share garayso, commentigana fikirkaada igula wadaagto. tan intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.